السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan halkan soo fadhiistay doonayna ka hadlo موضوع yaro ku saabsan amba mushkilad yaro baryaanka jirta geega Soomaalida taasoo mar dagaal qacan qaada dagaal afa dagaal qoraala meel walba la isku abaaray dagaaladaas kulli waxa si boonbooniye korsi qaadaba inta la soo gudbinayo inta dhacaysa waxa ka daray inta la soo gudbinayo dadku qaar ay wax ku darayaan iyo qaar siruna u sheegayaan waxa jiri jiray markii hore odayaal nabadda intay markaas oo kala ka soo hadlaan markii wax dhacaan dadka kale mas'uuliyo kala fadhiisiya dagaalka waxa la moodaa odayaal siyaasiyiin dhalinyar cid walba inay ku milmato qof walba dhinacii xigtay uu isaguna garabka iyo macin biday marka waxaan doonayaa macseer amba gabay yar imanka ugu talagalay inaan ka hadlo inaan kaga qayb qaato waxaan ku bilaabmaysaa sida tan waxaan ahay nin goohayo gabay garabka doonaya oo gubaabiyo wada nimco gacalka wada gaadha midaan gaar loo lahayn guud ahaan gidiina deeqa intaa waxaan u giigsaneen goobaynaa galladoone lama garaacdo geedka guusha midhaha laga gurtaayo gilgilasho adoo kara gubaysanaha soo gaabin goblan lama baro garasho adoon dadaalka u gudbin garaadkana hagaagixin ku dhac yeelo geesinimo hadduu gaalku siiyana gunto garku geeday hana qaadan gardaro haddaa gumuc lagugu gani hana ka gabanoo ha ka gaabsan wixii garashay diida garan dulmi ha u noqon gudma qaatimaan gufaysan galab iyo gelin hore intaa cadceeddu guurayso gabal dhacay gadaal dayax iyo gudcur jeerba jooga haddana garooshiya la-aan gelinba gelin u dhiibayo guyaalna guula soocay oo barwaaqo ku gadaaman kuwana gabaahiiroo gaajalo nafta laga gaadhaayay guud ahaan gogoldhigga labada xaal gundhigeeda nabad baa gargaartoo geyigeed gacan sareeyahay noloshayba guud u too garab siisaa guusha iyadaa golnagaadi loo geedi looga guurin guyariyo gabow iyaday guurdoonyiini markay galbato way gartaan haada dul goobaysa markaa gunuunaca goblanka iyo geerida taala abaalgale ma gudday ninkay ajasha goyso gar iyo magla-aan ninkeed godka gelisa aakhirana gaboodfal ninkeed gaf u geysa gulfunka iyo goobtay gasho gumeeya gumaaday gaagaabisay qoomiyadaha gidfa guuxumey baroor gaari iyo gabanka oysiisa galaafato geesi dila goxasha reebta gumaadayn garwaaqsanay colaadu gashigeeda markay galax tiraan garab roonno gabac keenta miyaynu garan intaan garfeeno gaatamaayo oo waxay nala gudboon garwaaqsanon guddi saarno aan gabagabeeyo oon guugaagta soo gaabso guurti iyo gaar baynu nahay nabadda giijinteeda daayartuna gaashaan iyo gidaar nabadda gadfaac markaas bayn goodoonkiyo ka tegi gurgurka guryaheena oo caalamkaa gaardinayaa gocliyo orad ku gaadhi goobtaan galneen oolnaa googolka laga goobi inagaaba deeqo gaadhsiin gudbin gacansiintooda dhexdeenan isu guulwadeeno oon gacaltooyo gunudno taas baa horseeda guud sare la gaadho assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasba waan yaraan ugu talagalay inaan kaga qayb qaato anigoo boonboonin iyo in dhinacaan u raacaba doonahayn waxaa doonaya insha allah inuu ilaahay nabadda inaga qaboojiyo nabadda inoo qaboojiyo dagaalada iyo waxaa jira sidii walaalnimada muslimada iyo soomaalinimada ahayd aan marka hore is wada joognay inaan wada joogno dhaqankeeni iyo sidii aan markii hore hadduu mid wax ku guulaysta ugu wada farxi jirnay inaan ugu wada farxno haddii mid wax musiibo ku dhacdana aan uga wada nixi jirnay uga wada naxno iminka waxaa taa kasii daranoo iminka jirtaba marka laga imaado dagaalada wax jira waxyaaba iska dabiiciyo haddii ay kolba qofda wajihi karayo waxyaabahaas oo kale haddii ay qolo walba qolada kasoo horjeeda ku dhacdo waxyaaba lixtaa laga nixi jiray baa jirta in kale lagu farxo insha allah ilaahay muxubada iyo kalgacalkii dhexdeena hayd ilaahay noo socdo soomaalidii hadday wadamada ku kala midaysnayd ku kala duwaneyd qulubta ka midaysnayd inuu ilaahay noo socodiyo saasaynu kaga tegay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu